halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Mootadiisa ayaa halkan ku baakinsan kadibna albaabka ayuu soo qaraacayaa. Gabadhan ayaa ka furaysa waxaan lagu magacaabaa Marina. Aad ayay isugu naxaysaa ilaa uu markii dambe si xoog ah guriga kusoo galay. Kadibna waxay u imaanaysaa ninkii. Lacag deyn ayuu ku leeyahay oo ka qaadatay muddo badan ka hor. Kadibna waxa uu ku leeyahay lacagteedii deynteeda aaway. Gabadhana kaligeed ayay ku nooshahay duurkan cidlada ah. Qofkan ka dambeeya halkan fadhiya waa hooyadeed. Deegaankanna waxaa ka jira dhaqan iyo caado. Marka uu qof dhinto, lafahaaga ayaa halkan busto la saaraya kadibna halkan ayaa joogaysaa. Qoomiyadana ma yaqaanin inay dadka aasaan. Markasta oo qof dhinto waxa ay dhigaan gurigiisa. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Marcos. Kadibna waxa uu kooranayaa duurkan cidlada ku nooshahay weli maysan jirin dad ku yimaaday. Isagoo ka wada miyaysan weli rag ku imaan oo san kula seexan ama aysan ku khasbin. Laakiin way xanaaqaysaa waxay ku leedahay adiga miyaa doonaya hadda inaad sidaas samaysid. Waxa uu ku leeyahay dooqu adiga. Way xanaaqaysaa laakiin markiiba waxa uu kooranayaa. Halkan ayaa caawa seexanaya 4 saaxiibaday ayaa iimaan doona waa inaa u samaysaa cunto aad u macaan. Mid kastoo ka midana waa uu kula seexanayaa caawa. Marina aad ayay isugu naxday waxayna ka soo baxaysaa guriga ilaa markii dambe ay go'aan gaadhay waxa ay ka yeeleed caawa. Habeenimo ayaa la gaaray kadibna halkan ayay yimaadeen nimankii uu sheegay ilaa markii dambe ay soo qaateen gaarigan aad ka weyn. Kadibna Marina loodii u joogtay oo dhan ayay gaariga saarteen waxayna rabaan inay ka qaataan. Guriga ayay soo fariisteen. Marcos ayaa soo dhaweeyay kadibna waxa uu keenayaa khamriga. Halka Marina ay aad u murugaysantahay laakiin markii dambe ay qaadatay go'aan geesinimo ah. Way u soo galaysaa laakiin way wada fiirinayaan dhammaantood. Ninkan ayaa u soo dhawaanaya waxa uu ku leeyahay aniga ayaa caawa kula seexanaya. Kadib markaa anigu hawsheeda dhamaystana waxa qancin doontaa saddexdan kale. Gacanta ayuu soo qabanaya laakiin Marina uma jawaabayso iyadoo aad u murugaysan. Waa ayna isaga tagaysaa. Kadibna Marcos ayuu galaysaa halkan jiifo waxa uu ku cabayaa khamri timaha inay hagaajinaysaa ay iska dhigaysaa ilaa markii dambe khaanada ay kala soo baxday. Geedkan oo mirihiisu ay yihiin sun. Khaanada ayay tartiib u xiraysaa ilaa markii dambe ay ka soo baxday qolkii uu ku jiray Marcos. Cuntadii lagu ballamay inay diyaarinaysaa laakiin geedka ayay soo qabatay mirihiisu ay ahaayeen sunta kadibna way burburinaysaa iyadoo markii dambe ku dartay cuntada. Waxayna doonaysaa inay intooduba caawa halkan ku dhintaan. Mid ka mid ayaa u soo galaya waxa uu ku leeyahay cuntada ayaan rabaa inaan ka dhadhamiyo laakiin way ka diidaysaa mana doonaysa inay fashilanto. Aad ayay u baqsan tahay wayna ka naxsan tahay ilaa markii dambe odagan uu yimi kadibna waxa uu ku leeyahay soo baxa. Labada wiil ayuu yaray waxa uu ku leeyahay looda waa inaa gaariga saartaan. In yar kadib Marina way u soo galaysaa waxayna wadaa cuntadii ay u diyaarisay. Cuntadii ayay kala siinaysaa afartii halkan fadhiday ilaa markii dambe ay si naxdin leh u wada dhaceen. Waxaana ka xoog badatay suntii halkaas ayay ku dhinteen afartii. Mar kale Marcos ayay u soo galaysaa kadibna waa u soo dhawaanaya waxa uu ku leeyahay cuntada intaadan siin waxaan rabaa inaan kula raaxaysto. Waxa uu doonayaa inuu khasbo ka hor intuusan cuntada cunin laakiin markiiba seeftan ayay soo qaadanaysaa waxayna ka jaraysaa qoorta. Shantoodiiba halkaas ayay ku dishay. Habeennimadii halkaas ayay seexatay. Gurigeeda ayay iska seexatay habeennimadii iyadoo shantii meydka ay u joogaan. Waagii ayaa bariyay waxa ay soo qaadaysaa madaxii Marcos kadibna waxa ay soo istaagaysaa meeshan wadada ah. Waxayna doonaysaa inay raacdo baska halkan soo mara maalin kasta ilaa markii dambe gabadhan ay u timi waxaan lagu magacaabaa Nofia. Way isku naxaysaa waxayna ku leedahay maxay tahay waxa wadid laakiin waxay uga sheekeynaysaa ficiladii ay samaysay iyo wixii xalay ku dhacay oo dhan. Nofia waxay ku leedahay madaxan awadatid waa inaa ku ridaa jawaankan si aysan dadku u arag. Ugu dambeyn gaarigii magaalada u socday waa uu yimi. Nofia iyo Marina halka ayay gaariga ku sugayaan ilaa markii dambe xagga dambe gaariga damcay inay koraan laakiin darawalkii gaariga ayaa arkaya kadibna waxa uu soo dhawaanaya Marina waxa uu ku leeyahay ka soo deg gaariga. Isla markiiba qoorta ayay ka saartay mindidan ay wadato kadibna waxay ku leedahay waa inay geesaa magaalada. Darawalkii aad ayuu isugu naxaya wuxuuna arkayaa gabadhan aysan wajigeeda naxariis ka muuqan iyadoo mindidii ku haysa ayuu gaarigii wadaa. Markay soo socdeen islaantan ayay soo istaagaysaa waxayna wadataa labada neef kadibna gaariga ayay soo koraysaa. Xagga dambe gaariga ayay fadhiisanaysaa waxayna la fadhiisanaysaa Nofia. Marina gaarigii waxay ka soo kortay xagga dambe. Waa ay soo socdeen waxayna ku jiraan wali jidkii loo socday magaalada. Labada nin waxay la dhasheen nimankii xalay la dilay kadibna waa ay soo baadigoobayaan si ay u soo ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin. Gaarigooda ayay Marina garatay markiiba waxay fadhiisanaysaa xagga hoose iyadoo iska qarinaysa inay arkaan. Labadii ninna si degan ayay ku dhaafayaan. Labadii nin waa ay soo soconayaan ugu dambeynna waxay imaanayaan gurigii ay xalay tageen afartii nin. Gaariga ayay ka soo degayaan waxayna arkayaan meydadkoodii oo halkan yaala. Waa uu iska ooyayaa waxa uuna arkay meydka walaalihiisa oo halkan yaala. Aad ayay u xanaaqsan yihiin ilaa markii dambe ay go'aan qaateen. Mootooyinkii walaalahooda ayay soo qaadanayaan waxayna soo baadigoobayaan Marina. Baskii Marina halkan ayuu istaajiyay. Marina iyo saaxiibteed Nofia halkan ayay fadhiyaan waxayna ku qaadanayaan waqti nasasho iyagoo ka soo degay gaarigii si ay suuli halkan uga dhigtaan. Laakiin arrin naxdin leh ayay arkaysaa Marina kadib markay aragtay Marcos oo halkan fadhiya madaxiisina uu ka maqan yahay isla markiiba way fiirinaysaa ilaa markii dambe ay ka soo carartay. Nofia ayaa soo qabanaysa way una sheegaysaa waxay aragtay ilaa markii dambe ay ku tiri adigu xagee u socotaa. Waxay u sheegaysaa inay magaalada u socoto. Waxay ku leedahay magaalada maxaa ka doonaysaa way u sheegaysaa waxay ku leedahay Marina waxaan rabaa inaan tago saldhigga booliiska si aan u soo dacwoodo. Laakiin arrin kale naxdin leh ayaa dhacaysa kadib markay arkeen Nofia iyo Marina gaariga ay saarnaayeen oo la qabsaday. Labadii nin ee raadinaya Marina ayaa qabsaday kadibna Nofia ayaa waxay ku oranaysaa aniga ayaa meel khaldan u diraya. Nofia gaariga ayay aadaysaa waxayna ku leedahay aniga ayaa arkay Marina waxayna qaaday wadadaas laakiin sida ay moodaysa ma aysan noqon.
noqon dadkii gaariga saarnaa iyo darawalkii iyo Noofiyaba waa ay ka haysteen si ay usoo tusto gabadhan meesha ay joogto. Marina waa ay ka naxsantahay in saaxiibteedu la afduubtay, isla markiiba waa ay soo dhaqaaqaysaa waxayna arkaysaa faraskan meesha cidlada yaal. Faraska ayay soo qaadanaysaa ugu dambeyn ilaa markii dambe ay usoo dhaqaaqday dhankaas iyo magaalada. Laakiin gadaasheeda dambe waxaa socda Marcos oo madaxiisii uu ka maqan yahay. Ugu dambeyn waxay timaaday tuuladii, kadibna waxay arkaysaa gabadhan halkan taagan. Gabadhii ayay u imaanaysaa, waana gabar dukaan halkan ku haysataa, cunto ayay ka dalbanaysaa maadaama ay aad u gaajaysan tahay. Ugu dambeyn saldhigii ayay timaaday Marina, laakiin labadan askari halkan ayay kubad iskaga ciyaarayaan, wax attention ma siinayaan. Mid kamid ayaa laga badiyay, kadibna uu imaanaya waxa uu ku leeyahay ii sheeg waxa aad doonaysid. Way u sheegaysaa waxay ku leedahay 5 nin ayaa isku dayay inay xalay kufsadaan, laakiin hadalkeedii ma uu sugin. Waxa uu ku leeyahay waxa lagaga baahan yahay inaad soo cadaysid, waana inaad cusbitaalka waraaqad ka soo qaadatid. hadalla khaldan ayuu kula hadlayaa. askarigana waxa uu doonayaa inuu isdhaafiyo, ma doonayo inuu gabadhan wax u qabto. waxa uu rabaa inuu dib ugu laabto kubadiisii. waxa uu weydiinayaa su'aalo dhowr ah oo aad u isku khilaafsan. mar kale ayuu ku oranayaa askarigii gurigaaga noo sheeg meesha uu ku yaalay. way u sheegaysaa waxa uuna ku leeyahay 2 bari ilaa 4 bari ayay qaadanaysaa inaan gurigaaga kugu nimaano si aan baaritaan u samayno, mana haysana gaari aan ku nimaano gurigaaga. iyadoo aad u xanaaqsan ayay ka soo tagaysaa saldhigii booliska, waxayna arkaysaa inaysan halkan cadaalad ka jirin, cid wax u qabanaysana aysan jirin. gabadhii yareed ayay u imaanaysaa. gabadhan aabeed iyo hooyadeedba waa ay dhinteen, kadibna way ku dhigaysaa gabadhii Marina ahayd. Marina gabadhii yareed ayay hooyo u noqonaysaa, waxayna la qaadanaysaa waqti aad u qurux badan. gurigeedii ayay kula noolaanaysaa. maalinnimadii xigtay Marina mar kale waxay dib u soo qaadatay faraskeedii, kadibna halkan ayay imaanaysaa iyadoo doonaysa inay safarkeeda hore usii wadato. labadii nin waxa ay dileen darawalkii gaariga waday kadib markii uu sheegi waayay meesha ay joogto Marina. ninkani halkan ayuu ku aasayay meydkii darawalka, halka saaxiibkii uu waardiye ka hayo dadkii rikaabka ah ee gaariga saarnaa oo ay ku jirto Noofia. taleefon ayaa hal mar usoo dhacaya Noofia, isla markiiba waxay isku dayaysaa inay taleefonkii qabato, laakiin ninkii gaariga ayuu kasoo degayaa. waxa uuna u imaanaya gabadhii, taleefonka ayuu khasab ku qaadayaa. ninkeedii ayuu la hadlayaa, waxa uuna ku leeyahay gabadhan aniga ayay ururi leedahay, waqti fiican ayaan wada qaadanay ayuu ku leeyahay. laakiin markiiba Noofia way xanaaqaysaa, madaxay bir kaga dhufatay. gaarigiina waa ay la baxsadeen. saaxiibkii ayaa arkaya, waa uuna ka daba ordayaa ilaa markii dambe arkay saaxiibkiisa laamiga jiifa. rakaabkii gaariga saarnaa waa ay soo baxsadeen. ugu dambeynna waxa ay yimaadeen tuuladan halkan ku taal. gaariga ayay kasoo degaya iyagoo doonaya inay wax caawimaad helaan. Noofia taleefon ayay isku dayaysaa inay halkan ka wacdo si ay u sheegto ninkeedii inay usoo socoto. mar kale dib ayay kusoo laabteen wadadii iyagoo safarkoodii hore usii watay. ugu dambeyn Noofia waxay la kulantay ninkeedii, kadibna waxay ku leedahay waan kuu xiisay, waqti badan ayay iga maqneed, laakiin waa uu ka xanaaqsan yahay. way usoo dhawaanaysaa, laakiin markiiba dharbaax ayuu ku dhufanaya. u tag ninkii taleefonka iga qabanaya, isaga ayaa dhalay. halkan ayuu ka daawanayaa, waxa uuna ku faraxsan yahay qaabka loola dhaqmay Noofia. ugu dambeyn Noofia ayuu imaanaya, waxa uuna ku leeyahay adiga iyo cunugaaga waxaa ku dhiman doontaan meeshan cidlada ah. wac taleefonka Marina waxaana u sheegtaa inay timaado. isla markiiba sidii uu sheegayay ayay u samaysay. Marina waxay ka ballan qaaday inay u imaanayso ayna sii tagaan gurigeedii. ugu dambeyn Noofia iyo ninkani waxay yimaadeen gurigii. Noofiadana aad ayay u murugaysantahay, ma garanayso waxa halkan ka dhici doona. iyadoo aad u walwalsan ayay gurigii gudaha usoo galaysaa. aad ayay u naxsantahay, waxayna ogtahay inay halkan yaalaan 5 nin oo dhintay oo meyd ah. waxayna raadinaysaa meeshii ay meydka gelisay Marina ilaa markii dambe ay meydkii aragtay. way xanaaqaysaa, waxayna soo qaadanaysaa mindidan si ay u dishay ninkan, laakiin waa ay ka baqday. mar kale dib ayay uga soo laabatay. habeennimadii ayaa la gaaray. ninkiina waxuu isku dayayaa inuu saaxiibadiisii meydka ahaa oo halkan dhigo, isagoo gudaha kasoo saaraya. waa ay fiirinaysaa iyadoo aad u naxsan, laakiin wax yar kadib iyagoo wada fadhiya ilbaabka ayay kasoo galaysaa Marina. kadibna waxa uu ku leeyahay waa inaa keentaa madaxii Marcos ayuu khasab uga qaadayaa. Noofiana waxa ay kusoo ordaysaa saaxiibteed Marina iyadoo laabta gelisay. madax ayuu soo saaraya, waxa uuna sidiisii ugu xirayaa meydkii Marcos, isagoo si fiican ugu beegay madaxa meeshii uu ka go'ay. balantii uu Noofia ka qaaday waxay ahayd haddii saaxiibta Marina ay timaado keentana madaxii Marcos, labadiinaba fasax ayaa tihiin. Marina iyo saaxiibta Noofia waxay isku dayeen ilbaabka ka baxaan, laakiin waxa uu ku leeyahay maya ha bixinina. waxa uuna ku amraya Noofia inay casho aad u macaan u samayso. jikada ayaa soo gashay Noofia iyadoo doonaysa inay casho u samayso ninkan, laakiin aad ayay u murugaysantahay maadaama uu ninkani ka haystay saaxiibteed Marina, isagoo si xoog iyo khasab ah ula galay qolkan si uu u kufsado. seeftan ayaa halkan kala soo baxaysaa, kadibna ilbaabkii ayay ugu soo galaysaa. isagoo khasbaya ayay dul imaanaysaa ilaa markii dambe ay qoorta ka jartay, halkaasna ayay ku dishay. isla markiiba fooshi ayaa qabatay markii ay dishay ninkii, kadibna saaxiibteed Marina ayaa soo kaxaynaysaa. waxay isku dayaysaa inay ka ulmulsiiso. nasiib wanaag Noofia waa ay dhashay ilmihii 10 bilood caloosha ku haysay, ilaa markii dambe saaxiibteed ay habsiisay. cadowgii dhan waa iska celiyeen, farxad ayay halkan ku wada qaadanayaan. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeeyey, waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan ha ka ilaawin muuqaalka like saar. haddii ay tahay markii kugu horeysa channelka soo booqatana subscribe noo saar. tan iyo inta iskaga imaan doona filimka xiga waxaan idinkaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgeliyo.